halkani waa Muqdisho 2002 Muuse Yelo wuxuu markuu u talin jiray asaga oo gacanta ku hayay oo dadka meesha uu joogo asaga madaxweyne iskaga dhigayay noloshu sidaan bay ahayd gabadhan Kenya ka soo duushay diyaaradda u jeedaan waxayna soo degaysaa Muqdisho daawasho wanaagsan. Nothing can really prepare you for a trip to Mogadishu. I tried to say a silent prayer before takeoff, but my mind wanders off to my son's words on telephone. Be careful, Mummy, he said when I telephoned him at school to inform him that I'm off to Somalia. We are soon airborne, and I noticed that the hostesses on board Diallo Airlines, one of the more regular carriers to Mogadishu, do not even bother with your usual sit back and relax niceties. If it is your first visit to Mogadishu, the 2-hour flight from Nairobi may seem like a lifetime. We land at K50 Airport, so named because it is 50 kilometers from the capital Mogadishu. We get off the plane to be greeted by huge clouds of dust on the Maram runway. I steal impatient glances around. There are too many people carrying firearms for my comfort. I notice my cameraman David Kaigi filming from a distance, and I feel more at ease. David had to travel to Mogadishu ahead of me. The doors of the luggage compartments are flung open, and passengers cram around for their baggage in the same way you would look out for your luggage when traveling by bus. Then, I see one of our guides walking off with my suitcase without a word. It dawns on me that there is no passport control office, so I follow the guide to a waiting cabsi badan iyo boor badan oo airportka marka ka soo degnay ka muuqatay waxaan arkay nin iskala sii socdo boorsadaydii oo la sii cararayo asaga hal su'aal iga weydiinin. 4 gunmen will pass for bodyguards between me and David, my cameraman, for the duration of our stay in Mogadishu. A Toyota Land Cruiser is driving ahead of us. It has 14 mean-looking heavily armed men. This, I am informed, is our escort car. Extra security. Baawur baan lagu soo qaatay 4 nin baa geesaha naga fadhiyay oo qoriyo wata aniga cameraman-kaygii. Baawurtana hor socoto waa dad waardiyeynay oo aad u hubaysan. ayaa u kala fiicnaa qoriga qaad. wax kul wala hayaan soo noqon hayaan ma soo nabad imaanaya ma soo imaan asoo dib soo gaar imaanaya ay ku wariyaan. Crime levels in Mogadishu are high. It's the most volatile region in the whole of Somalia. 5 warlords control the Somali capital. 5 nin ayaa maamusha Muqdisho oo Mooryaan ah oo qabla loo yaqaano markaas ayada oo gacanta ku hayso nin walba meel u xiran tahay waxa la soo doortay sidoo kale madaxweynihii Carta lagu soo dooranayay 2002 the highest risk. After some security briefing by our minders, we check into the Shamo Hotel. And wow, it's one of those things that make you wonder about the contradictions of life. Muqdisho waa meesha u dilka badan u dhibaatada badan Soomaaliya oo dhan maalin walbana dad baa lagu dilaa dad leh ku dhinta xabadu ma kala joogsato. Wow, meesha hotel baba ku yaal qurux badan. Go shopping. Remember, when visiting Mogadishu, your personal safety is your primary concern. It does not matter how much you are, just do as you're told, because disregarding instructions of your minder could cost your life. waxay ka sheekanaysaa dhibaatada iyo waxa ka jira Muqdisho markaas waxay dhahday moolka laga adeeganayo shopping ka tagnay meeshaas waxaan weydiiyay markaa joognay inaad tagno meesha qoryaha lagu gado waxa la yiraahdaa miyaad waalan tahay ina ibi weydiisidba waaba dil hadaba ka hadashidba dadka dhan magaalada fiiri qof aan qori wadan ma jiro ninka hadda dhaaf qori wata baabuurta aan qori ba saaran dadka dhan hubba ay wada wataan dumarka ciyaalka ragga qof walbeeto odaga weyn aabaha adeerka wiilka sodoga seediga in habreedka qof walbeeto oo Muqdisho lugeynayo baabuurta dhan qori ba saaran magaalada u jeedaan ee sida hubka meelaha dhulka u yaala banaanka u yaala suuqa loogu gadaayo aad u jeedaan ayay maantay ay tahay markaas waa 2002 maantay aan hadda hadlayno waxa waaye waa 2019 hubkaas arteen oo isku bedelay iyo magaalada isku bedeshay qax iyo dhibaato iyo waa magaaladaas iyo dadkaas iyo hubkaas oo isku bedelay al-shabaab qarax xabadaha si loo ridaa u jeedaan dhibaato qaxar sidii wax ka daran dadka fiirisi hubkooda fiirinayaan qof walba qori buu gadanayaa qof walba qori buu raba inuu haysto Muqdisho maantay ayadoo lagu jiro haddana uu ku soo celiya 2019 waa sidaas u dheer tahay dadkii inay noqdeen bahalo
2002 baa la qaatay al-shabaab ma jirin dad maartay isku qarxiya ma jirin dad isku dilo lacag $5 u dila ma jirin waxa ahayd markaas qable oo la isku dilo aniga lacag badan rabo ya aniga businesska weyn rabo ya aniga qabiilkan leader u ah oo hogaaminayo aniga qablaha ku xigeenkiisa ah aniga qablad meeshan ka ii xirantay iyo goofkan maanta taas wax isku bedeshay qof walbeeto inuu qof kale ka awood badan yahay yaa isqarxin kara yaa hub badan haysta yaa u babacdhigi kara dad badan oo meel wada fadhiya fiir baabuurta magaalada dhan kulli saasiyad markuu Muuse Yelaxow shaqo qabla ka tilnaya dhahday qanyare iyo Cabdi Qaydiid oo labadaas ay kamid yihiin Muuse Yelaxow iyo Cabdi Qaydiid yihiin sanatarada golahaas baarlamaanka ugu sareeya maantay bal ninkana government collapsed. The stores of the weapons were broken by the people to collect these from the stores, and also these weapons are in the hands of the population, and there are some merchants who bring the weapons from the neighbor countries, mostly from Ethiopia, from Yemen. We then head off to a place the locals call Fuma Mogadishu. This was the epicenter of the civil war. It was Somalia's commercial and political center, housing parliament, the central bank, and other key government installations. I guess the place under the name Fuma Mogadishu because it is now just ruins. It is one of the most dangerous places in Mogadishu. The ruins are controlled by several warlords. It took some deal making with the militias. halkan waa bankiga dhexe ee Soomaaliya meesha ahaan jirtay bay dhacday hadda way ogtiin sida uu eg tahay sidoo kale waxay dhacday meesha waa meesha u cabsida badan Muqdisho waxaana haysta qablayaasha Muqdisho 5 nin ee noo sheegtay mid kamid ah magaciisa meesha sheegin waana meesha u cabsida badan sidaan bay u eg tahay markuu Muuse Yelaxow uu ka talinayay Muqdisho oo ka ahaa 5 nin ee noo sheegtay bal sida u eg tahay magaalada fiir Ilaahay baa kugu dhaariyay laba isbuuc aan joognay Muqdisho waxaa naga dhamaatay lacagtii oo inta badan aan ku bixinaynay dadkana waardiinaya oo lacagtana lagu waardiinaya naga dhamaatay marka waxaan u noqonaynaa Nairobi markii halkan imaanay oo halkan aan la farsano airport wax yar noo jiro dhibaato la kulanay dhibaato waxay tahay waan iskaga dhaxbaxaya waa ninka soo socdo iyo nimankii la fadhido waardiinaya iyaga bal wixii dhaco waa arkaynaa Who were in trouble. A man who looked like the leader of the group sought to know from us what we were up to. He was not convinced that we were up to any good. We were just a kilometer away from the airport, with our flight due in just over an hour. The mean-looking gunman instructed us to turn back and drive to their command base for interrogation. We were ushered in by the base commander, the son of a warlord who owns an airport in the vicinity. I was relieved when he spoke to us in fluent Kiswahili. He was educated and brought up in Kenya. Apparently, the location we chose for our interview is where they keep heavy military equipment. The base commander only set us free when he was sure that what we had shot was in fact an interview. We made it to Daniel Airport in time for our Mira flight to Nairobi. I felt a heavy load lifted off my chest as we touched down at Wilson Airport. That cliché, east or west, home is best, was not just a cliché. saddexdii nin oo ka cabsanayna oo lidka nagu ahaa oo nagu soo dhaqaaqay oo su'aalahan weydiiyay waxa naga bixiyay dhahday oo naga fakiyay oo gadaal ka imaaday ninka airportka qablaha ah ee iska leh oo airportka sheegta Muqdisho wiil uu dhalay oo Soomaaliga aad ugu hadlo aqoonna leh ayaa naga bixiyay guriga hooyaa ku soo noqonay bay dhahday